madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu dhinac socday dhigiisa wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo booqasho 2 maalin ku jooga Soomaaliya ayaa waxay si wada jira maanta xariga uga jireen dhismaha safaaradda cusub ee dalka Djibouti oo ku yeelanaya magaalada Muqdisho. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed uu yahay shacab la abaal gashto isla markaana waxa uu booriyo horumarka Djibouti ka gaartay dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda. mudane madaxweyne mar kale soo dhawow waxa meeshan cad oo xaqiiqo ah in dadkaagu ay ku jecel yihiin inay dadkaagu ku jecel yihiin soo dhaweyntii quruxda badnayd qulubtooda ay ku fureen sida ay u hadleen gabayadii heesihii iyo intaas waliba waqti badan lama haynin intaas in ka badan iyo diyaar u hayeen taasi waxay cadeynaysaa abaalka ay dadka reer Djibouti iyo dawladdaada iyo adiga hogaankaaga aad horay ugu geysateen aad horay ugu dhigateen. Soomaali waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo Soomaali waa dad goob ah. Soomaali waa dad goob ah oo abaal leh. abaalkan hadda aan muujinayno oo aan ku tusayno runtii waxaa ka horeysay abaal kale oo ummadda Soomaaliyeed ee horay ugu geysatay dawladda iyo dadka reer Djibouti waalaheena ah. waxa weeye bacdama dhaqankeenu yahay abaalku inuu wax weyn yahay abaalkii waa gudeen annagana waa gudi doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ka hadlay munaasabadii furitaanka safaaradda ayaa waxa uu ka jeediyay ereyo uu ku cabirayo soo dhaweyntii uu kala kulmay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed muddadii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho. hadalkaygu ma badnaanayo maxaa yeelay waa shucuurtayda ayaa ii diidaysa inaan hadalka sii wado waxa qalbigayga ka buuxana waqti badan ayay doonaysaa inaan cabiro waxa aan la tiicayaa hadallo ilaa xalay nooc walba lagu fasiray ka tarjumaya waxa aan qalbigeenna ku hayno waxa kalgacal iyo jacayl iyo heel inaga buuxa labadeena shacbiba waxa aan xusaynaa marxalad taariikhi ah oo na soo martay 20 sano ka hor. furitaanka dhismaha safaaradda dalka Djibouti ee Muqdisho kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sagootiyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo wafdiga la socday oo booqasho 2 maalin ay ku joogeen Muqdisho kadib u laabtay dalkoodii. Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya.